الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي صدحات إيو كتاب كاني حكم وفوائد من روائع الإمام ابن القيم رحمه الله وفائدوينكي إي حكمته لغسو أروريي كتبتا الشيخ ابن القيم رحمه الله والشيخ كان لي عاقبة كتمان العلم علمي أولا قريو عرب حمضة أي leedahay qofka wuxuu yidhi cilmigiisa fa ina man khasana cilmahu walam yanshurhu qofka cilmigiisa meelgeliya waxaa la yidhahdaa makhsan waxaa la yidhaahdo waa meelaha bakhaarka oo kale alaabta lagu kaydiyo oo albaabka loo xidho qofka intuu cilmigiisii meel saa u geliyo albaabka u xidho oon ummadda barin oon nashrinin kuna dhaqmin ibtalaahu allahu binisyaanihi wa dihaabihi minhu alla wuxuu ku imtixaamayaa isagana horta inuu cilmigii kaa tago oo uu ku dhaafo ood garan weydo taasina waa abaalmarka jazaha waxa adigu aada samaysay macluumadaa sheekhu wuxuu ku sheegay kitaab miftaaxu daari sacaada haddaba cilmiga oo meesha inta lagu ururiyo aan la faafinin waxaa ka dambeeya waa nisyaan iyo khasaaraa ka dambeynaysa waa kii lahaa sheekh abu isxaaq alilbiri yaziidu bikahrati alinfaaqi minhu wayanqusu in bihi kafan shadata cilmiga haddii la bixiyo wuu bataa waxa weeyaan cilmiga waa laga zakeeyaa bay yidhahdeen culimmadu cilmiga in laga zakeeyo macnaheedu waa in la baro dadka waa inaad ku hadasho waa inaad adigu faafiso waa inaad jeediso waa inaad marka taasuu cilmiga zakadiisu noqonaysaa haddii kale ood ilaaliso ood istiraahdo yousan bixin yaan lagu ogaanin waxay noqonaysaa inuu adigana meel bannaan adoo fadhiya maalinta dambe is aragtoon waxba garanayn adigoo wax soo bartay oo jaamacada kasoo baxay oo laga yaabo waxaa maanta walaalayaal waxyaabaha aadka iyo aadka noo murug gelinaya oo dadka murug gelin inaad aragto qof sheekh ahaa oo aqoon lahaa oo maanta laakiin laga leeyahay ama salaada ma tukada mise ma tukado waxaan arkay subxaan allah wiig toddobaad ka hor safar baan ku jiray wadanka maraykanka dhexdiisa gobol abaan booqday marka waxaan ugu tegay halkaa nin sheekha baan maqlay inuu meeshaa yimid oo aan isnaqiinay 91 oo weliba dadkii runtii aan ku dayan jirnay oo qur-aanka iyo cilmigaba ugu sarreeyay ahaa dadaalka badnaa marka dadka wax bari jiray ma ahayn keliya inuu yaqiino dad sheekha buu ahaayoo xilligaa 91 dadka wax bari jiray marka imaamkii aan u tegay baa waxaan ku idhi niyo waxaan maqlay sheekh hebel inuu gobolkan yimid ninkaas waa nin sheekha ma ka warqabtaan wuxuu igu yidhi sheekh axmedow no more sheekh ninkaasi mar damba sheekh ma ah yacni iska halmaan buu igu yidhi warka aad sheegayso ninkaasa wuxuu yidhi hadduu salaada tukado waa badi subxaan allah aada baan runtii ula murugooday nin ahaa dadka lagu daydo oo maanta halkaa xaalkiisi marayo keligii ma aha boqolaal aan wada garanaynood idinkuba garanaysaan oo jaamacado kasoo baxay oo masaajida dadkii ugu horreeyey ahaa baa weliba wadamadan reer galbeedka iyo markii lasoo galay oo cabsidu ay badatay oo qofka islaamka yaan lagugu arkin yaan lagugu farfiiqin yaan lagu oran waa kan yaan lagu dabagelin ayaa laga yaabaa inuu duurka u galay oo laga yaaba haddii la yidhahdo war mashe wadaad baa tahay wadaad mi war ma qof muslima tahay qaarkood ay yidhahdaan muslimka taa ay ka warwareegaan dharkii iska dhaafla xidhan iyo wixii lagu garan jiray muuqaalkii ragga haybadoodii garka uu lahaa fulaan wixii oo dhan tirtirayo laakiin waxyaabaha cajabta badan oo iyadana aragnay nin kale oo wadanka maraykanka aan ku arko isaguna sheekh ahaan jiray ayaa gobol buu joogay marka wuu isqarinayay oo in la ogaaduu ka baqaay marka nimanka wadankan jooga oo la yidhaahdo FBI-da ama sirdoonka maraykanka baa u yimid maalin maalmaha ka mida waxay ku yidhaahdeen ma ogtahay inaanu ku naqaano ma ogtahay inaad soomaaliya joogi jirtay ma ogtahay inaad halkaa iyo halkaa joogi jirtay ma ogtahay inaad nin mas-uulood noocaasa ahayd waan kaa warqabnaa waxaan xusuustaa in loo diiday xitaa
waxyaabaha dukumentiga iyo baasaboorka iyo lagu dhibay oo intaana uu isqarinayay oo masaajida ka cararayay oo dadka yaqiina uu ka ordayay waxaan rabaa inaan runtii kelimo kale oo muhimana idiin sheego oo aniga nafteyda ay qabsatay. Maraykanka markaan imid ayaan la tashaday xilligan magaalada wadanka kusoo aaday sheekh kamid ahaa culimadii Maraykanka oo nin sheekh ahaa oo imaam ahaabaa markaa la xiray oo maaragtay wadankan Maraykanka sirdoonku ay xidheen. dabcan wadaadnimo iyo hadda wuxuu fidinayay unbaa loo xiray. marka ilaahay amarkii habeenkii igu horreysoon magaalada Minnesota soo galay, Minnesota aan imid, ayaan wadaadkana maalintaasaa la xiray. marka culimadii waxaan kusoo degay sheekh, waa inaan idiin sheego, sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar, doctor sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar xafidahullah baan gurigiisa habeenkii imid. muxaadara ayaan masaajidka ka qabtay aan xusuusto ahayd cibaaduraxmaan. marka sheekhaan israacnay, waa wada cashaynay. sheekhu arrintiibuu ku jiray shirkii, anigana waxaa la ii waday marka inaan imaam aan noqdo magaalo la yidhahdo Kansas City, Missouri, masjidu taqwa oo markaa la dhisay. ayay culimmadu yidhaahdeen halkaa ha lagu geeyo. waan ka ogolaaday, laakiin dadkii qaraabada ah markaan u sheegay ma ina soo dhoweynin oo waxaa la yidhi wadaadiyahu hayswaalin oo yaan maanta dadka arkaya maqlaa iyo wadaad baana haya intii lagu arki lahaa ilmahaaga u shaqayso oo iska ilaali oo yaan lagugu arkin oo qamiiska iska daayo, kan sameeyo, garhka xiiro, orod duurka gal oo kambaniyada tag oo halkaa ka shaqayso. wadanka Maraykan lacag baad u timid. marka qof caawa raba inuu shaqo bilaabo oo masaajid uu ka bilaabo oo wadaadkii ka horreeye la xiray, waad garan kartaan yani qofka waxbaa ku dhacaya. marka sheekhii baan runtii la tashaday, sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar xafidahullah. kelimad aanan marna halmaamin oo weligii aan iga go-in qalbigaygu igu yidhi, wuxuu ihi sheekh axmedow, soo ma ogid dacwadan iyadaabaan isku ilaalinaynaa, dacwada iyadaan isku dhowraynaa. marka hadalkaasi waa iga goy waaye. dacwada iyadaa la isku ilaaliyaa, iyadaa la isku dhowraa. iyagaa marka qofku haddii uu cizadaada iyo sharaftaada iyo diintaada aada qariso, waxaa weeye ummadii kalena agtooda waad ka dulloobaysaa. haddaad adigu diintaada sheegato ood muuqaalkaagii loo jeedo oodan qarinin, waa sida. walidaalika ayaa hadda waxaan ku irahdaa dadka kambaniyada ka shaqeeya oo kale, qaar baa garka wiilasha lagu dhibaa, gabdhaha xijaab baa lagu dhibaa, surwaal soo xidhaa la yidhaahdaa, salaada meel looma ogola ay ku tukadaan. waxaan idhahdaa sheegta oo waxaad tidhahdaa anigu muslim baanahay, waana inaan tukado, religionkayga iyo diinteyduna waxay ii siinaysaa inaan tukado. hadday dood kugu keenaanna warqadna waa laguu qori, masaajidda kuu qoraya, looyarna waa u tagaysaa, mana samayn karaan inay kuu diidaan. oo wadankan hadda waa wadamadan xuquuq buu bini aadamku ay ku leeyihiin, marka laguma diidi karo. haddii lagugu diido oo lagugu dhibana ka tag, iskaga tag meeshaas, meel ka fiican baad heli. man taraka shay-an lilaahi cawadahu llahu khayra mima tarak. ilaahay darti qofkii wuxuuga tagana ilaahay baa bedel ka khayr qaba, ka khayr fiican buu alla siinaya. ilaahay subxaanahu watacaala xaqa qalbigeena ha ku weyneeyo, ilaahayna thabaat fi diin illaahi allah hayna siiyo, ilaahayna subxaanahu watacaala hayna xifdiyo. jazaakum allahu khayr, baaraka allah fiikum.